indhuhu iyo dhaguhu waxay ka mid yihiin xubnaheena ugu muhiimsan kuwaasoo nafteenna muhiimad weyn u leh la'aantooduna ay tahay niyad jab aad u weyn. Haddaba daawade ka waran shakhsi indhaha iyo dhagahaba naafo ka ah hadduu aqoonta uu ka gaadho shahaadada ugu sarreysa ee PhD holder ma rumaysan lahayd daawade? yaa shakhsi indhaha iyo dhagahaba naafo ka ah ayaa aqoonta ka gaaray PhD holder? waa la yaab. may haa, waa sax daawade, waa jira shakhsigaas. magaciisa waxaa la dhahaa Helen Keller. magacaygu waa Cabdiraxmaan Jaarig. haddaa muuqaaladan noocyadan oo kale ah xiisaynayso noo dhahaa like, subscribe saan u ogaano inta muuqaaladan xiisaynaysa noocan oo kale ah. ha u galno muuqaalku faahfaahsan. Helen Ann Miss Keller waxay dhalatay sanadu markay ahayd 1880kii, waxayna u soo dhalatay si caadi ah oo xubnaheedu caadi ayay u ahaayeen. waxayna ahayd curad reer ugu weyn, waxaana asiibay xanuun qandho ah markii ay gaadhay 19 bilood. xumadaas waxay saameyn kaga tagtay Helen, saameyntaasoo ah indho iyo dhago la'aan. waxayna weyday Helen weeyaan labadeeda lixaad kuwii ugu muhiimsanaa. waxayna Helen hooyadeed bilowday in ay gabadheeda dhakhtar ay u raadiso. markay in muddo ah ay raadinaysay hooyadeed dhakhtarkii, Helen hooyadeed waxay jaraa'idka ay ka akhrisay in uu jiro dhakhtar xanuunada daaweeya waxna ka yaqaana. dhakhtarkii markay Helen iyo hooyadeed ay u tageen, wax aad u weyn uma uusan sheegin. ugu dambeynna waxaa soo baxday in aan waxba laga qaban karin. Helen ay saa ku weyday indhaheedii iyo maqalkeediiba. haddaba su'aal ayaa isweydiin mudan, yaa ka dambeeyey Helen inay guusha intaa leeg ay xaqiijiso ku garabsiiyeyna, maadaamaynu ognahay inay ahayd qof dhago iyo indhabala? jawaabtu waa mid aad u fudud, waxaana ka dambeeyey maclimadeedii Anna Sylvia. saanu ognahay qof kasta waxa uu u baahan yahay qof gacan qabtaa, waxaana ay ku iftiimisay waa Helen buuggeeda in maclimadeeda Anna Sylvia ay garab istaagnayd in badan oo nolosheeda ka mid ah. cajiib, ku dhowaad waxaa la sheegaa in ay 50 sano ay la joogtay. dadka adduunka sooyaalka wanaagsan ku leh waxay mudan yihiin in lagu daydo. haddaba daawade, innaga maxayna kala gudboon? qof la yaabkiisa lama. Helen Keller waxay ahayd maclimad, tababare nololeed iyo qoraa. waxayna tagtay waa Helen Keller ku dhowaad 37 dal, kana soo jeedisay hadallo wax ku ool ah una badan dhiirigelin. marka aan ku leeyahay Helen baa wax baranaysa oo wax qoraysa, waa indha male dhagana male oo indhaha iyo dhagahaba waa ka naafo. haddaynu tilmaamno hibooyinka Ilaahay uu ku manaystay Helen, waxaa ka mid ahaa qofkii ay mar taabato oo ay salaanto way ka garan jirtay dad badan oo kale. teedu waxay dhammaayeen. waxayna qortay 18 buug oo aad loogu intifaacay. waxaana buugaagteeda ugu muhiimsanaa buugga la dhaho The History of My Life iyo kuwo kaloo badan. waraahihii Helen Keller waxaa ka mid ahaa boholaha uu qofku ku dhacayo oo yoolkiisa ka joojinaya waxaa ka mid ah adkaysi la'aanta. waxay kaloo tiri adduunka ma jiro qof adkaysi la'aan wax gaadhay, iyo kuwo kaloo aad u fara badan. Helen Keller waxay dhimatay sanadu markay ahayd 1968. waxayna sooyaalkeeda ka baranaynaa in saburku iyo dadaalku meel dheer ku gaarsiin karaan. haddaba daawade, xagga hoose nagula wadaag waxaad sheekada guusha ee Helen Keller aad ka faa'iidaysatay.